Anigu waa Samatar. Waxaan rabaa inaan idinka sheekeeyo maalintayda. Aroortii xilli hore ayaan toosaa. Waan cadaydaa, waan qabaystaa, kadibna waan qureecdaa. Kadibna waxaan akhristaa buuggayga. Buugga markaan cabbaan akhristo kadib, waxaan aadaa iskuulka. Aroortii markaan iskuulka u soo baxo, waxaa dugsiga i geeya aabbahay iyo adeerkay kolba midkii jooga. Saaka laakiin baabuurkaa halaysan oo labadoodaba baabuurkii ayay hagaajinayeen. Muddo ayaan sugay, kadibna markay baabuurkii hagaajiyeen ayay i qaadeen. Waxaan tagay dugsiga. Waxa halkaa idinka muuqda waa labadayda macallin ee Daahir iyo Jaamac. Labadaas macallin waxay i baraan maadada xisaabta iyo af Soomaaliga. Waa macallimiin aad u fiican. Hooyaday cuntaday aad u karisaa, habaryartay baa iyaduna caawisa. Mararka qaarkood jikada markaan u soo galo, waxay ii sameeyaan cunto wanaagsan oo aan jeclahay oo kala duwan. Markaan dugsiga ka imaado galabtii, waxaan inta badan sameeyaa casharrada markaan akhristo oo aan qabaysto kadib, waxaan la ciyaaraa gabadha yarta ee walaashay ah oo la yiraahdo Xaliimo. Xaliimo waxay dhalatay dhowr bilood ka hor, iyaduna waxay jeceshahay inaan la ciyaaro maalin kasta. Aniguna waan la sheekaystaa oo waxaan u sheegaa waxa aan maalintii soo qabtay, gaar ahaan iskuulkayga. Galabtii waxaan u akhriyaa buugaag. Inkastoo aynan fahmaynin, haddana anigu waan jeclahay inaan akhriyo buugaagta. Waxaan ka bartaa waxyaalo badan oo aan u baahanahay inaan ogaado. Buugaagta aan akhriyo waa buugaag badan oo ku qoran af Soomaaliga. Af Soomaali badan aan ka bartaa oo aan mararka qaarkood u baahdo in la ii sharaxo. Markaan ereyada qaarkood fahmi waayo, waxaan u sheegaa hooyaday. Hooyaday ii sharaxda. Af Soomaaliga waan jeclahay, waa wanaagsan yahay, maxaa yeelay waa afkayga hooyo. Waxaan akhriyaa oo aan haystaa buugaag badan oo af Soomaali ku qoran. Idinkuna waxaan idin rajaynayaa inaad barataan akhriska af Soomaaliga oo aad barataan. Carruurtu haddii afkooda bartaan, waxay baran karaan luqado badan oo kale. Waa mahadsantihiin.